بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كسو دوادا حلقة سقالات التاريخ دي شيخ عبد القادر الجيلاني وحان ولي كسي جرناه محاضروينكي أما ماركتهي قطبوينكي أما حكمته وشيخ عبد القادر الجيلاني دادك كو عدي جري ها هاتو ميلها مجالستي سأه ha ahaato markii uu dadka tala siinayo ha ahaato markuu culumadii la hadlayo ha ahaato markuu madaxdii la hadlayo ha ahaato markuu ardaydiisa la hadlayo ha ahaato markii uu bulshadii la hadlayo waxyaalihii talooyinkiisii iyo xikmooyinkiisii iyo dardaaranadii iyo wacdiyadii uu dadka ku wacdi jiray qaybtii ugu dambeyday intii aan ku tala galnay insha allahu tacaala aan ku soconaynaa waxaa ka mid ah hadaladii sheekh cabdulqaadir aljilaani uu dadka ku wacdi jiray akhrijuu dunya min quluubikum ilaa aydiikum fainaha laa tadurukum war adduunyada ka saara quluubtiina oo gacnihiina usoo saara idinma dhibaysee maxaa yeelay qofka adduunyada inuu shaqaysto waa loo baahan yahay ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka waa kaleh walaa tansa nasiibaka min addunya qaybtaada adduunyada ha halmaamin xadiidna nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam izhad fi dunyaa yuxibaka allah adduunyada ku dhex zaahid marka adduunyada ku dhex zaahid waxa weeye adduunyada qalbigaaga ka saar gacantaada ha ku jirto oo ha halmaamin gacantaada inaad ku haysatid oo shaqayso dadka ha u baahan xalaashii iyo khayrkii aad u isticmaalaysaa marka qalbigiina ka saar gacnihiina geliyuu leeyahay maxaa yeele qalbiga hadday ku jirto ayadaa ku hogaaminaysa idinma dhibaysuu leeyahy markaas addunyaa faaniyatun daahiba adduunyadu waa wax baaba'aya hiya daaru alaafaati walbalaaya waa deegaan musiibooyinka iyo dhibaatooyinku iskugu yimaadaan maa yasfu liaxadin fiiha caysh qof oo maaragtay nolol fiican iyo weligiis farxad ku dareemana ma jiro laa siyamaa idaa kaana xakiima hadduu weliba qof xikmad iyo caqli u saaxiiba yahay oo qof caqliga badan yahay wuxuu fahmayaa adduunya inaysa ahayn meel lagu raaxaysto oo lagu barwaaqoobo oo nolosheedu farxad ay taallo culaysba culays buu daba yaalla laakiin dadka masaakiinta ah waxay moodaan oo aan xikmadda iyo caqliga u saaxiibka ahayn in ay barwaaqo tahay adduunyadu iyo kama dambaysa waxaa hadalladiisii ka mid ahaa tasxabu aljuhaal fayatacaddaa ilayka min jahlihim suxbatu alaxmaqi suxbatu qabnin waxaad la saaxiibaysaa dadka jaahiliinta ah cawaandiga ah aan waxba garanayn dembigiiyo xumida ku jira markaas ayaa jahligooda kuu soo gudbaya qof axmaq ahoo doqon ah saaxiibtinimada aad la saaxiibtaha waa saaxiibtinimo khasaartay isxabi almu'miniina almuuqiniina alcaalimiina alcaamiliina bicilmihim waxaa la saaxiibtaa dadka muuminiinta ah ee iimaanku dhabta ka yahay yaqiinta leh cilmigay barteen ku camalfalaya aqoonta leh kuwaas la saaxiib maxaa yeele sidiiquka man nahaak wacaduwuk man aqwaak saaxiibkaagu waa qofka xumida kaa reeba waxa weeye qofka xun cadowgaagaahina waa qofka ku baadiyeeyo isaguba kuusii horseeda xumida marka qofkii ku yidhaha warxanta iska jooji hebel hana xaman waxaan ha dhibin dhibkan ha geysan waa saaxiibka kaasa saaxiibka runtaa ilaa agtiisa ah laakiin qofka ku baadiyeeyo xantii ku horseeda beentii ku horseeda khiyaanada ku horseeda isku dirdir ku horseeda fitnada kugu hogaamiya waa cadowgaaga يا جاهل تعلم العلم لوجه الله عز وجل واعمل به فإنه يؤدبك العلم حياة والجهل موت ورمد كان جاهل كهو علم جبرو إلهي درتيس كلي أبرو يري كبعدنا كو عمل فل علمي جو أسجع كو إدبنا يا مركز وحالجا يا وقف إنا أركت علمي أقونتي لكن أخلاق دي سيدا عن كيسة هذا أبوجين حيا العمل فلك يا مغان مركز علمي هذا أنت برتت هبير هذا أكو عمل فشيد أسجع إدبتي خير كو هو جاميني cilmigu waa nolol aqoon darida iyo jahliguna waa dhimasho yiri waana sida ahayd waxaa ka mid ah hadalkiisii isxab man yucaawinuka calaa jihaadi nafsik laa man yucaawinuha calayk waxaad la saaxiibtaa qofka kugu caawinaya oo kugu gacan siinaya naftaada sida uga adkaa laheed oo shahwada iyo dembiga iyo macaasida uga reebi laheed laakiin ha la saaxiibin qofka naftaada gacan siinaya oo adiga inay kaa adkaato oo xumidii iyo shahwadii iyo fisqigii iyo dembigii iyo xantii iyo beentii iyo brobagandadii iyo khayaanadii inay la timaado kugu gacan siinaya qofkaas ha la saaxiibin
idaa saxibta shaykhan jaahilan munaafiqan saaxiba طabcin wahawaa kaana mucaawinan lahaa calayk. haddaad la saaxiibtid qof wadaadnimo sheeganaya laakiin aan ilaahay ka baqayn, cilmigiisa aan ku camal falayn, oo waxa weeye aqoontii saxda aheedoo xaqa uu ugu hogaansamaya xumida uga haraya aan haysan, munaafiq ahoo afkiisa waxa ka soo baxaya qalbigiisu kala duwan yihiin, hawo u saaxiibaho waxa naftiisaas rabta kaliya ku socdo, korna cilmigii ka sheeganayah, naftaadu inay kaa adkaato uu kugu gacan siinaya. markaasuu dadka inaa xamatid, cuqdad inaa qaadid, xasad inaa noqotid, dadka adigoo cilmigii iyo kitaabihii ku raran ayaa ninka noocaas wadaadka noocaasi wuxuu kugu gacan siinayaa inuu ku yidhaha hebel iska jir, hebel xasad, hebel nibcow, kan aniga dartee u nibcow, kani anuu ifiiriyey, kani anuu wax iga sheegay, kan la dirir, kan fogow. ummaddii ilaahay oo dhan midba cilad uu u yeelayaa asagu raba keligiis inuu muuqdo. ashuyuukhu laa yusxabuuna lidunya bal yusxabuuna lilaakhira. culummada runta ah marka aad ku xirmaysid, wax ka baranaysid, la soconaysid, saaxiibka la noqonaysid, adduunyo loolama saaxiibe, aakhiradiia loola saaxiiba. oo waxa weeye adduunyadaada dadaad la shaqaysato ayaga ka aqoon badana helaysaa, laakiin ayaga markii aad rabtid inaad diintii ka baratid, markaad rabtid inaad toobad keentid oo tala ku siiyaan, khayrkii iyo wanaaggii agtooda ugu imaanaysaa. marka qofkii aadan wadaad sheeganaya ee aakhiradaadii aan kugu gacan siinayn, ee adduunyo iyo dhiirigelin iyo cadaawad iyo cuqdad iyo xumi kuu geynaya, kaas iska jiru leeyahy. markaasuu leeyahy idaa kaana shaykhu saaxiba طabcin wahawaa suxiba lidunya waidaa kaana saaxiba qalbin suxiba lilaakhira. hadduu qofku sheikaahi yahay kan wadaadnimadka sheeganaya qof hawadiisa iyo shahwadiisa iyo dantiisa iyo adduunyadiisa raacdaysanaya, waxa loola saaxiiba waa adduunyo. qof kaloo la raba inuu sadbursi raba alla saaxiiba. laakiin hadduu yahay qofka wadaadka ahi aakhiradu miday ka go-an tahay, adduunyadan ku dhex zaahiday, diinkiisu ka run sheegayo, dadka si saxa ugu sheegaya, waxa uu dadka u sheegaya iyo waxa uu ku dhaqmaya ay isleeyihiin, waa qofkaas aakhiro inaad yani wax aakhiro ku saabsan ka baratid, aqoon ha ahaato, camalfal ha ahaato, ayaa ula saaxiibaysa. wuxuu leeyahy sheekhu kam uxadiruka min ibliisa wa acwaanih wa anta tasxabuhu wa taqbalu minhu. imisan kaaga digayaa ibliis iyo ciidamadiisa iyo saaxiibadiisa, adiguna aad la saaxiibaysaa, taladooda aqbalaysaa. yani ibliiskii iyo saaxiibadiisii ilaa ilaahay subxaana wa tacaala markii uu nooga digayay waxaan ilahay ka magan galayna min aljinnati wannaas, bini aadamkaa ka mida wax waswaasiye, waxa shaydaanka shayaaطiin alinsi waljin qur-aanka ilahay ku leeyahy. shaydaankii jinniga ahaa iyo kii insiga ahaa labadiiba wixii aan kaaga digay dadkii xumaad la saaxiibaysa oo ku baadiyeynaya u leeyahy. maxaa ka mida marka shaydaanka kuwiisa xun oo uu leeyahy sheikhu waan kaaga digay, adna waa la saaxiibaysaa. acwaanuhu nafsu wاdunya wاlhawaa wاطabc wa aqraanu suu. shaydaanka ciidamadiisu waxa weye waa naftaada, saaxiibadiisa iyo dadka u kaalmeeya waa naftaada, waa adduunyadii, waa hawadii iyo dabeecadda qofka wuxuu iska jecel yahay, iyo saaxiibada xun u fiirso. kuwaas waa ciidamada shaydaanka. saaxiibka xun ciidanka iyo taliyaasha askarta shaydaanka weye. ixdar iljamiica kulahum fainahum acdaa'uka. dhammaantood iska jir, dhammaantood waa cadowgaaga. maxaa yeelay ilaahay meeluu ka raali yahay intaasi kuu hogaami maayan haddaad taageertid. marka saaxiibka xun inaan iska ilaalina wey, waa shaydaan ciidankiisa. nabigeenuna uu nooga digay calayhi salaatu wasalaam, qof kasta oo xumaadana inta badan saaxiib xuna gacanta ku dhigay, ee dadku marka hore wanaaga u diyaarsan yihin. waxaa hadaladiisa ka mid ahaa man araada an yaxsula lahu ridaa biqadaaءi illaah falyadum dikra almowt. qofkii ilaahay raalli ah inuu waxa ilaahay keeno qadartiisa iyo qallihiisa ku raalli noqdo, raalli ahaashahaas inuu helo doonayaahi, dhimashada ha xusiisto. mar kastaba dhimashada xuskeeda ha badiyo. nabigeenu muxuu leh alayhi salaatu wasalaam akhiruu min dikri haadimi ladaat, oo kama qaala sal alay wasalam. macaanyaalka kii goynayey xusiistiisa badiya. markaas waxa weye waxaa imaanaysa inaa mar kastaba ilahay xaggiisa wixii kaaga yimaada ku raalli noqoto. faina dikrahu yuhawinu almasaa'iba waalaafaat. dhimashada oo aada xusiisatid mowdkii dhibaatooyinkii iyo culeysyada uu kuu fududaynayaa. laa yaguruka shabaabuka wamaaluka wajamiicu maa anta fiih. yaysan ku dagin dhallinyaranimadkaaga iyo hantidaada iyo barwaaqada kalood haysatid, yaysan ku dagin. can qariibin yu'khadu minka jamiicu maa anta fiih. goor dhow ayaa waxaas a haysatoo dhan lagaa dhex qaadaya oo gacantaada ay ka baxayaan.
waxaa hadaladiisa ka mid ahaa idaa saxibta man huwa akbaru minka fi الtaqwى wاlcilm kaanat suxbatuka lahu barakatan calayk. haddii aad qof kaa weyn yani kaa sareeya xagga taqwada, kaa alla ka cabsi badan, kaa aqoon badan, kaa cabsi badan, kaa taqwo badan haddaad la saaxiibtid, saaxiibtinimadkiisa khayr iyo barako iyo wanaag aa ka helaysaa. ilaahay qof ka cabsanayaa noqonaysaa, qof maaragta waxaad aad noqonaysaa wadada saxdahay. maxaa yeele saaxiibku maxaa leedahay dariskaa diintiisa ku yeela, saaxiibku saamayntiisa ku leeyahy. marka qof adna alla ka cabsanayo aad noqonaysaa. waidaa saxibta man huwa akbaru minka fi الsini walaa taqwى lah, haddaad la saaxiibtid qof kaa da-weyn laakiin alla ka cabsi aan lahayn oo alla ka baqayn, haddaad la saaxiibtid walaa cilma lahu, aqoonna aan lahayn, kaanat suxbatuka lahu shu'man calayk, saaxiibtinimadkiisa musiibo iyo dhibaato iyo baas ayay kugu noqonaysa, aakhiradaad iyo fasahaadaysa. halkan wuxuu noo sheegaya qofku markuu dad xuxun la saaxiibo, xataa asaga ayaa dadka kaleo dhan wax fiican kama malaynayo. markaas wuxuu leeyahy suxbatuka lilashraar tuuqicuka fii suu'i danni bilakhyaar. haddaad dadka xun la saaxiibtid, tuugaad la saaxiibta maalanba, dadka kaleo dhan oo fiican wax wanaaga kama malaynaysid, xumaan bis. haddaad tuuga la saaxiibtid, haddii lagu yidhaha hebel ama heblaayo waxba ma xadaan, oo xataa haddii agtooda lacag la dhigto ma kala jecla, waxaa leedahay suuragal maahan inaysa waxadin. haddii aad dad xanta iyo beenta iyo khayaanada ku badan tahay la saaxiibtid, haddii lagu yidhaha hebel iyo heblaayo wax ma xantaan wax ma khayaanaan, waxaa leedahay may suuragal maahan jaanisaysa u helin. haddaad la saaxiibtid dad zinada iyo macaasida u fududahay, haddii lagu yidhaha hebel iyo heblaayo zina ma galaan waa ka fog yihiin, waxaa leedahay may jaanisaysa u helin. xumida yacni waxaa kuu fududaanaya qof kastaba inaa xumaan ku eedaysid. hadaladiisa waxaa ka mid ahaa calayka biاtaqwى calayka bixuduudi sharci, waxaad ku dadaashaa alla ka cabsiga, sharciga xuduuddiisa, waxyaalaha sharcigu jideeyey ha dhaafin xuduudda, meesha oo sharci kuu soo hadimeeyey. waxadda xuduudan falaa tactaduuha, nabigu le alayh الsalaatu wasalaam, ilaahay xuduud uu dhiga soo hadimo ee ha gudbinina. wاlmukhaalafati liلnafsi wاlhawa wالshayطaani wa aqraani suu, waxaa kaloo ku dadaashaa naftaada inaad khilaaftid oo aadan ku raacin xumida iyo hawada iyo shaydaanka iyo saaxiibada xuxun, inaada ku raacin xumida ku dadaalu leh. waxaa hadaladiisa ka mid ahaa isxabi اlmu'miniina almuuqiniina الصaalixiin wasbir calىa kalaamihim waqbalhu wacmal bihi waqad aflaxta. waxaa la saaxiibtaa dadka muuminiinta ah, yaqiinta iyo iimaanka leh, saalixiinta howa wanaagsan oo alla ka cabsada, kuna samar oo waxa weeye hadalka iyo wacdiga iyo waanada dadka wanaagsan oo ilaahay ka cabsanaya markasta xumid ay kaa reebayaan. naftuna waxay rabtaa inaad been sheegtid, misale inaad been sheegtid, inaad xan sheegtid, inaad naga daha nagu xamana, war hebel ha xamana naga dhaaf, wanigo khayaano yaana baran, waxaas yaana saman. maanta o dhan waxbay kugu wacdinayaan. ha dhihin marka maanta o dhan wacdi badmida ha dhihin, ee ku samir uu ku leeyahy, ku samir hadalkooda, aqbalna kuna camal fal, waad liibaanaysa. maxaa yeele qofka wanaagsan khayr kaliyuu kuu sheegaya, laakiin kan kale xumida xantaba asaga kuu sallaxaya. hadba waxaa ka mid ah hadaladiisa dac mujaalasata man yuragibuka fi اdunya waطlub mujaalasata man yuzahiduka fiiha. ka carar oo iska ilaali inaad la fariisatid qof adduunye jacayl kaliya kugu tallaalaya, mar kasta kugu dhiiri gelinaya, aakhiradiiba ku halmaansiinaya, maanta oo dhan kugu dhiiri gelinaya adduunye sida lagu helo. maxaa yeele maca marka dambe xaaraanu ku gelinaya. waxaana la saaxiibtaa qofka adduunyada kugu dhex zaahidinayo, yacni adduunye xataa hadduu ku leeyahay tabco qalbigaaga, laakiin saa uga ilaasho laheed oo qalbiga aysa kaaga geli lahayn kugula talinayo. waqtigii sheekh cabdulqaadir aljilaani waxaa batay oo aad u badnaa dadka sheeganaya cilmiga tarbiyada iyo taskiyada, yacni aad u sheeganaya laakiin diinta ku qaraabanaya iyo brobagandada iyo xumida wada. dadkaas labiskii leh culamaa taskiya leh, sidii xaafidu abi nucaym raggu kitaabaha ka qoraya ah, oo imaamu ghazaali uu la dagaalamaya ah. dadkaas magaca diinta inta labiskii dadka ahlu taskiyada qaatay ku qaraabanaya ayuu sheikhu aad iyo aad uga degi jiray, oo ayagoo weliba ayagii isdhibaataynaya, isxamanaya, midba midka kale wax ka sheegayo, midba mid kale xertiisa ku dirayo, midba midka kale madaxdii uu dhib ka gaarsiinaya si kaas loo qabto.
markaasuu kuwaas adciyaa ulcilmi walwilaaya dadkaas cilmiga iyo wilaayada sheegta asagoo la dagaalamayo ayuu wuxuu dadka uga digi jiray uu dhihi jiray war iska ilaalsha oo dadkaas diintooda ku qaraabanayo hadaladiisa waxaa ka mid ahaa yaa sallaabiina addunyaa biطariiqi alaakhira min aydi arbaabiha yaa juhaalan bilxaq antum axaqu biاtawbati min haؤulaaءi alcawaam antum axaqu biاlictiraafi biاdunuubi min haؤulaa laa khayra cindakum wuxuu le war kuwan adduunyada gacanta kala baxa oo ka siibta dadka reere adduunyada ah kuwan gacantooda adduunyada kala baxow oo ka dafow war kuwan xaqa ka jaahilka ahow wadaadadaas ku qaraabanaya diinta aan xaqa ku camalfalayn aysan ka run ahayn la hadlayaa kuwiinaas diintii u adeegsaday iyagoo magac diineed iyo wadadii aakhirada maraya inta dharkii culummada qaatay oo magacii maaragtay xaqa iyo saalixiinta sheegtay ku qaraabanayow antum axaqu biاtawbati min haؤulaaءi alcawaam adinka ayaa ka mudan dadkaas caamada ah ee aad leedihiin toobad keena ee aad wacdinaysaan adinkaa ka mudan inaad toobad keentaan naftiina ka bilaaba nimankiinaas wadadii aakhiro inta adeegsadoo culummadii iyo diinkii magacooda adeegsaday diinka ka been sheegaya adinka horta iska bilaaba dadka caamada adinka ka xun adinkaa ka mudan dadka caamada ah inaad dembigiina qirataan oo ictiraaftaan oo aad inaad daalimiintiina ogaataan laa khayra cindakum wax wanaaga agtiina ma yaalaan oo diin iyo khayr laydiin soo aadaya ma jirto dadka waa qaldaysiinuu leeyahy u fiirso waayahay waxaa hadaladiisa ka mid ahaa haddii cilmiga mirihiisa iyo khayrkiisa iyo barakadiisa ay agtaada taallo albaabada madaxda maada aadeen cilmigaaga hadduu yahay cilmi aad khayr iyo taqwo iyo wanaag iyo iimaan kuu kordhiyey oo aad ku camal fasho hadduu yahay lamaa sacayta ilaa abwaabi salaatiin albaabada madaxda maadan garaacdeenoo ma taagnaateen 24 saac fii xuduudi nafsika wa shahawaatiha adigoo doonaya naftaada yani dheef adigoo doonaya shahwaadka u socdo haddaad maalanba maslaxo kale ugu socotidoo qof madluumahoo la dhibay oo la dulminayo aad rabti inaad usoo shafeecdid haddaad rabti madaxweynaha laftiisa tala inaad usoo jeedisid waa ka duwanta laakiin adoo adigu dantaada wata albaabada madaxda maada taagnaateen haddii cilmigaagu uu yahay cilmi ilaahay dartiisa uu leeyahy oo ku anfaco waayaha alcaalimu laa rijlayni lahu yascaa bihimaa ilaa abwaabi alkhalqi qofka caalimka ah ee diinta bartay kuna dhaqma ilaahay taqwadiisa iyo waxa alla ka raaliyahay diinkiisa u adeegsadaahi ma leh laba lugood oo uu bini aadam albaabadood ugu socdo macnaha waxa weeye ilaahay buu u soconaya maahane madaxdii iyo bini aadamkii u raadsamayo xoolo iyo dano laga wada yani saasa laga wada lugo inuusan lahayn maha macneed macnaha lugihiisa kuma raadsado albaabada madaxda iyo meelahaas iyo inuu hunguri ku raadsado waxa weeye hadduu shaqaysana waa shaqaystaa diinkiisa iyo taqwadiisa khayrkiisa waa xoogsadaa wixiisa wazaahidu laa yadayni lahu ya'khudu bihima amwaal annaas qofka hadduuba zaahidihi adduunyo ku dhex zaahiday oo qof ilaahay ku kalsoon yahay laba gacnoodu uu dadka xoolahooda ku qaata male yacni waxa uu ka wadaa dadka uma gacan hoorsato ilaahay buu arrimihiisa ola laabtaa wاlmuxibu lilaahi caza wajal laa caynayni lahu yanduru bihima ilaa gayrih qofka ilaahay subxaanahu watacaala jecel laba indhoodu cid kale ku eego ma laho yani indhihiisa wax ilaahay ka soo hara buu ka xijaabnay yani waxba uma raadsado inta fiirfi war meeshan waa laga hanti badan yahay qobola ka sar dheer iyo yani inuu cid kale wax haysata uu arkaba suuragal maaha waxaas kaloo dhan waxba lamaha ilaahay agtiisa waxa yaallo weyn kaliyuhu damcaya waxaan kaloo hadduu dabaqyo dheer dhistay hadduu hanti badan haysa waxaasoo dhan wuxuu arkaa wax yaroo dadkan bini aadamka iska haystaan inay ka sarreeyaan uma malaynayo indhihiisa waxaas kaloo dadku haystaan maba qabanayaan yani uma arko waxba waxaa ka mid a hadaladiisii hada zamaanu rukhasi laa zamaanu alcazaa'im waqtigaani waa waqtigii ruksooyinka iyo meelaha fudud dadku ka daba wareegi jireen alla waqtigeenan ka waran yacni waqti waxaa la jooga hule qof kasta shareecada meeshii fudud ka qaado ilaa ayada dhanba uu ka tago laa zamaanu alcazaa'im waqtiga waajibaadka iyo waxyaalaha adadag dadku ay ku dhaqmayeen maaha oo qof kasta wuxuu ku dadaalayaa hadday salaad tahay sidii uu jaanis ugu heli lahaa fududaynteeda soonkii fududayntiisa
xaaraamtii ka fogaashaheeda fududaynta in oo qiil loo helo wax kasta loo xalaaleeyo yani caziim wax kastaba in oo loo keena qiil uu rabaa huu leeyahy qof kasta hada zamanu الriyaaءi والnifaaq وaأkhdi amwaali الnaas bilbaطili bigayri xaq waa waqtigan waxa wey leeyahay waqtigii istustuska iyo munaafaqnimadka iyo dadka xoolahooda xaqdarro lagu qaato waqtigaasaa lagu jira huleeyahy oo qofkii markaa aragtid diinkii kama run sheegayo ilaahay dartiis kama ahan waxa uu leeyahy wuxuu aaminsan yahay iskala duwan xoolaha dadka suu ku heli lahaa qaab kastay tahay uu ku dadaalaya qad kahura man yusalii wayasuumu wayaxuju wayuzakii waxaa batay dad tukanaya soomaya xajinaya zakadii dhiibayaa batay wayafcalu afcaala alkhayri lilkhalqi laa lilkhaaliq waxayna samaynayaan acmaashii khayrka iyo wanaaggii bini aadamka dartiisayna u samaynayaan ilahay dartiisa maya maanta aada u badanta maanta waxaa moodaa igu sawir wax kasta inay gaareen wax kasta igu sawir sadaqa haddaan bixinayo anoo gacanta ku hayo masaakiinka u taagaya igu sawir xajkii haddii la tago xataa xajkii oo jaaniskii ugu weyna ahoo qofka hal mar soo mara laga yaabo dadki qayb ka mida in qofku yidhaha meel heblan taagana anoo ordaya hala isawir anoo gacnaha taagaya hala isawir anoo sujuudsan hala isawir anoo quraan akrina hala isawir wax kasta halay arko waxaa la rabaa jaaniskaas yar inaad ta ka faa'iidaysatid ee aad bini aadamka ka dhuumatid lama oga inay ku soo marayso waa fursa dahabiya fi lcumri mara waa jaanis oo dahab ahoo hal mar ku soo maray waqtigaagii laga yaabo inaad dadka dhanta ka dhuubatay ka go'day ilaahay subxaanahu watacaala meeshaas dunuubta dhan lagu dahirayo ee maalinka hooyadaa ku dhashay aad la soo mid noqonaysid inaan istustus iyo hala arkiyo hala maqliyo waxaasoo dhan calaa'iqdoo dhan iska jirtid marka wuxuu leeyahay lilkhalqi laa lilkhaaliq waxaa loo samaynaya acmaasha bini aadamka loo samaynaya markaas ayuu shiikhu wuxuu leeyahy dadka uga degi jiray dadweynaha wadaadada noocaasa diintii ku qaraabanaya ee ka been sheegaya ee labiskii culummada inta u xirtay dadkii ku khayaanaya ee albaabada madaxda taagan inaysan dhegaysanoo maqlin maxaa yeele waa ay fidnaynayaan markaasuu waxadara caamata aljamaahiir min xuduuri mawaacidihim wاlistimaac ilى kalaami haؤulaaءi اlmutashabihiina mutamashikhiin yani dadkaas sheekhyada iska dhigay oo isku ekeysiya culummada in oo hadalkooda ay dhegeystaan wacdiyadooda maxaa yeele qalbiga wax jira maaha markaas wuxuu dhihi jira yaa cibaad allah laa tasmacuu min haؤulaaءi aladiina yufrixuuna nufuusakum yaduluuna lilmuluuk wayasiruuna bayna aydihim kadar laa ya'muruunahum biamr walaa yanhawnahum can nahyi war dadkaanow addoommaha ilaahayow ha dhagaysanina kuwaas oo adinka idinka farax gelinayo hadalka qurxoon idin sheegaya laakiin boqorada waxa weeye isku dulaynaya hortooda noqonaya dhowracase oo kale wax yaroo quranyaa la mid noqonaya oo aan wax macruufana u sheegayn munkarna aan ka reebin hadday sameeyaan arrintaasna munaafaqnimo iyo ay ka tahay isku kalif muxuu sheekh jiilaani qoladaas kale ka yiri cid kasta ee diinta magaceeda dadka ku khayaanta diinta magaceeda ku qaraabata ilaahay dartiis aysa ka ahayn ciday rabta ha noqotee muxuu ka yiri u fiirso طahara allahu اlarda minhum wa min kuli munaafiq aw yatuuba calayhim aw wayahdiyahum ilaa baabi ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwaas dhulka ha ka dahiro dhulka allaha ka tirtiro kuwa noocaasa makhluuqiyo fasahaadinayaan magac wadaadnimo u sheegteen noocay rabaan ha noqdeene magac diineeda inta u sheegtayna dadka diinta ku khayaanayaan ilaahay dhulka ha ka tirtiruu leeyahay ciddii shareecada inta si xun u isticmaasha dadkii wadaadnimad u sheegata dad ay ku xirmaan haddana ilaahay dartiis diinka uusan ka ahayn ayaga iyo munaafaq kasta ilaahay dhulka ha ka tirtiro ama ilaahay toobadda ha ku duwo toobadda ha ka aqbalo ama ilaahay ha soo hanuuniyo ilaa baabih wadadiis ha u soo hanuuniyo inii agaaru idaa samictu waaxidan yaquulu allah allah wahuwa yara hayrahu wuxuu leeyahy sheekhu waan ka masayraya waa ka xanaaqaya ka caroonaya haddii aan arko qof ilaahay magaciisa ku luuqaynayo dadkii markuu wacdina allahda ku haya maantao dhan laakiin cid kale ujeedkiisu uu yahay
oo waxa dadka inuu ismaqashiyo inuu sheekh iska dhigo inuu xoolo uga helo in madaxdu garato inuu soo caanbaxo in waxa weeye uu ku qaraabto doonaya aada uga carooda yiri kuwaas oo kale haddii arko diinta ilaahayna waa u masayra wuxuuna galayaa hadalkii nabiga calayhi salaatu wasalaam u fiirso ee nabigu u yiri calayhi salaatu wasalaam man labisa thawba shuhratin fi dunya albasahu allahu thawba madillatin yowma alqiyaama thawba madallatin yowma alqiyaama thuma ulhiba fiihi naara qofkii adduunyada mara caanbax xirta mara uu ku caanbaxayo qofkii xirta adduunyada ilaahay mara dulli ayuu maalinka qiyaama u xiraa dabna waa lagu holciya fasiro fara badan ilaa 7 ilaa 8 qolaa lagu sii fasiraa laakiin waxaan ka soo qaadanaynaa aimadu waxay ku fasiraan waxaa ka mid ah qofka xirta dadka zaahidiinta oo cibaadada badan dharkooda xirta asagoon ka mid ahayn ee doonaya in la yiraahdo waa zaahid adduunyada qof ku dhex zaahiday ama ma ahane wuxuu xiranayaa dadka culimada oo diintii yaqaano diintii barto mutafaqihadii iyo dharkoodii asagoon ka mid ahayn kuwaasa ka mid ah aimada islaamku xadiidkan marka ay fasirayaan shuraaxda culimada xadiidku ay ka mid ah maradaas uu ku shuhrooba yacni marada uu ku caanbaxayo isleeyahay hal la arko yacni inaad dadkaas ka mid tahay waa badan tahay macnaha maryihii aan xalaasha ahayna ka mid a mara uu faan iyo kibir uga jeedaa ka mid a mara uu inuu madax iyo sayid iyo kaaba qabiil yahay ku muujinaa ka mid a maryaha kuwa ay xirtaan dharka dadka ka qosliyaa ka mid a mara uu isku tustusinayaa ka mid a waxyaalahaasoo dhanaa ka mid a marka sheekh jilaani wadaadada noocaasa iyo cid kastoo dadka waxa ay u sheeganaysa waxa ahayn ku socota aad uu u radi jiray dadkaas munxarifiinta ah waqtigiisiina aaday u badnaayeen markaas wuxuu uga jeeday in dadkaas looga digo ummadda ee lasoo saara dad culimo ah oo diinku daacad ka yahay maxaa yeele dadkaas diinku daacadda ka yahay ee diinka aqoonta u leh ee ku camal falaya oo qolo kasta ay qaybtay ku takhasustay ka run sheegayso markay soo baxaan waxaa imaanaya in la helo dadka fiqhiga bara dad tafsiirka bara dad soo saara dad tarbiyaysan dad soo saara dad caqiiqda fiican dad soo saara dad aqoon leh dad munkarka reeba dad macruufka fara dad madax soo saara dad jiilasha dambe waxa weeye wax anfacaya soo saara dad siyaasiyiinta fiican soo saara aqoonyahan soo saara bulsho caafimaad qabta soo saara bulshada isjeclaysiiya dadka isku xira dadka aan isnebcaysin dad culamaha noocaasa soo baxaya dad ummadda mideeya ayaa soo baxaya markii sidaas loola dhaqmo laakiin haddii kale waxaa soo baxaya qof qoloba ayagu iska jiraan qolo kasta ahay ayagu yacni magac wadata ku qaraabanaya ummaddii isdhacdo fidnowdo sida maanta aan taagannahay koox la isku nacay bulshadiiba qofba qofka kale uu leeyahay yuu yahay kooxduu yahay ayagoo wadaadadii ku kala xiran taasoo kalaa soo baxaysa markaasuu dhihi jira war dadkow war islaamkii waa oynaya gargaaru dalbaya madaxa ayaa gacnaha u saaran yihiin islaamka asagoo dadka faajiriinta ah ee faasiqiinta ah ee daalimiinta ah ee dharka beentaa xirtay ee diinka sheeganaya asagoo ka cabanaya ayuu maaragtay islaamkii oynaya huu leeyahy wuxuuna kuwaas ay la mid noqonayaan noocaasi kuwii rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam almutashabbicu bima lam yucta kalaabisi thawbay zuur qofka wax aan la siin iska dharjiya oo muujiya inuu haysto laba maroo beena kii xirtay uu la mid yahay xadiidkaas waa bukhaari iyo muslim imaam nawowi marka uu sharxayo hadaladii uu fasirada lagu fasiray waxaa ka mid inuu yahay huwa aladii yalbasu thawba ahli الzuhdi wاlcibaadati wاlwarac waa qofka waxaa ka mid a fasirada lagu fasira aymo badan ku fasireen waxaa ka mid a inuu yahay qofka xirta dadka ahlu zuhdiga ee ahlu khayrka ee cibaadada badan ee adduunye ujeedkooda uusan ahayn ee diinkooda ka rur sheegaya dharkooda qofka xirta dadka cibaadada badan dadka xalaal miiradka ah dadka taqiyaalka ah dharkooda qofka xirta wamaqsuuduhu an yudhira linnaasi anahu mutasifun bitilka sifa ujeedkiisuna uu yahay inuu dadka u muujiyo inuu qoladaas ka mid yahay kooxdaas wayudhira min altakhashuci wazuhdi akthara mima fii qalbihi fahadihi thiyaabu zuurin wariya una muujiye qalbigiisa waxa ku jira wax ka dheeraada oo taqwo aan ahayn sheeganaya taas wuxuu leeyahy waa istustus iyo been abuur uu leeyahy imaam nawowi kitaabkii saxiixu muslimka sharxiisa qofkaasina qof diinta dadka ku khayaanayo noqonaya ho man ghashana falaysa mina uu soo gelaya qofkii diinta ku khayaana dadka naga mid maan hadalkii nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilahay waxaan weydiisanaynaa inuu naga dhigo kuwii diinkooda ka run sheegaya ilaahay ka cabsada
taqwada iyo khayrka iyo wax dhan oon samaynayna ilaahay dartiis ula jeeda intaas casharkeena kusoo kobayna wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu